السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الصدى وهذا القناة كنا صيال كميديا والبدينا هو وين ما انت وحاي كليهين xildhibaanada dawladda federaalka oo meel mariyay xeerka kulaasta gobolada waqooyi ee dalka. dawladda Sacuudiga oo go'aan rasmi ah ka soo saartay xajka xuduudinta Yemen oo weerar culus ku qaaday caasimadda Sacuudiga. rabitaas oo faahfaahinaya goor ku maqal doontaan wararkeena. magacaygu waa Maslax Nasiif Fadlan u cusub tahay channel-kan subscribe inoo saar si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo maadsan aadna ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay cod aqlabiyad leh ku meelmariyay xeerka kuraasta gobolada waqooyi kadib kulan ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. sida uu shaaciyay gudoomiyaha golaha shacabka waxaana xeerkan ogolaatay ilaa 67 mudane. hal xildhibaan ayaana ka aamusay mana jirin wax diiday. gudoomiyaha golaha shacabka oo kulankan ka hadlay ayaa shaaciyay inuu ansax yahay xeerkaasi isagoo uga mahadceliyay meelmarinta xildhibaanada golahaasi. xeerka kuraasta gobolada waqooyi ayaa kamid ah 4 xeer ee ay soo diyaariyeen guddiga wada jirka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. xildhibaanadan ayaa shalay dood adag ka yeeshay xeerkan oo lagu soo dooranayo kuraasta xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland. baarlamaanka Soomaaliya oo ku guda jira ka fadhiga 7aad oo ah kii ugu dambeeyay ayaa ku howlan howlaha doorashada oo aan wali lagu heshiinin nooca la qabanayo. dawladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay tiradada kooban sanadkan loo ogolaan doono xajka bilaabanayo dhamaadka bishan Julaayo. wasaaradda xajka Sacuudiga ayaa sheegtay in kaliya dadka degan gudaha Sacuudiga sida ay doonaan haystaan loo ogolaan doono sanadkan inay xajiyaan. dawladda Sacuudiga ma shaacin tirada rasmiga ah ee ka qaybgal doonta xajka sanadkan. sanadkii tagay waxaa xajka gutay dad gaaraya 2.6 milyan oo qof. Sacuudi Carabiya marna ma joojin xajka muddo 90 sano ah tan markii dalkaasi la aasaasay. dalal dhowr ah ayaa goor hore sheegay inaysan cidna xajka u diri doonin sanadkan. kooxda xuutiyiinta Yemen ee dagaalka kula jirta dawladda Sacuudiga, Imaaraadka iyo xulafadooda ayaa weerar gantaal ah ku qaaday caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyadh. caasimadda Sacuudiga ayaa waxaa laga maqlay ilaa iyo dhawaaqa 2 qarax oo xooggan sida ay daawacday wakaaladda wararka ee Reuters. balse dawladda Sacuudiga ayaa inkirtay in weerarkaas loo adeegsado diyaarad drone ah. taasna beddelkeeda waxay sheegtay in weerarkaas ahaa gantaal laga soo tuuray magaalada Sanca ee dalka Yemen. telefishinka ku hadla xuutiyiinta oo ka hadlay weerarkaasi ayaa sheegay in saacadaha soo socda kooxda soo saari doonto war-saxaafadeed lagu faahfaahinayo weerarkaasi iyo meelaha loola beegsaday. kooxda xuutiyiinta oo ka dagaalanta gudaha dalka Yemen ayaa isbuucan dhexdiisa waxay Sacuudiga ku qaaday 2 weerar oo loo adeegsaday ilaa 3 gantaal iyo 8 diyaaradood oo kuwaan duuliyaha lahayn. gudahantaas ay kusoo gabagabeynaa wararkeena. warkan warka xiganta kulmi doono waxaan kaga tagay sidaas iyo amaan Allah.